بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waa nabadoon meel maag oo idin la maalin wanaagsan dhamaantiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo Donald Trump kan America cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamka iyo Afrikaanka maxay isaga egyihiin waxyaabo badan waxa kamid ah laba nin oo xanaaqsan oo soo noqday oo ciil qaba oo burursan ولكن waxay ku kala duwan yihiin kan wadankiisa kaliya kama taliyo Trump odayga Trump adduunka dhan khariidada intuu saas miiska u fudsado leeyahay dawlad walba tan waxaasan ka rabaa tan waxaasan ka bilqaysana xasan sheekh maxamuudna waa meeshan yaro Soomaaliya حتى Soomaaliya dhan ma wada maamulee gobolka Banaadir iyo nawaaxigiis inay xoolo aruursadaan waxay hanti boobi karaan ay boobaan way og yihiin inay waqti kale inay ku soo noqdaan ay ku adag tahay marka termiga hore mid walbo 4 sano hore markuu meesha ka dagay oo wuxuu dhahay hadaan soo noqdo fursadda bahdaan helo wallahi waxaan cafinahay ma jirto waxaan qaadan karo iyo waxaan boobi karo waan boobahaya markii soo noqdeen waa taas la arkaa xasan sheekh maxamuud dhulkii magaalada muqdisho kala barobar wax dawlad leh iyo wax dad danyar meesha ay deganaayeen iyo qubuuri xataa ka fakan waayeen marka Trumpna dawladaha daciifka ah hadda Venezuela meel la yiraahdo agtooda Latin America u burursan yahay petrolka buuxa iyo khayraad wadamada dahabka ku jiraan Afrika u soo socdaan u maleenayaa asaga waxa waaye waxa uu boobi karo waa badan yihiin leeno wuxuu isticmaalayaa awoodda dawladda Mareykanka oo meel badan maaragtay iyo quwadda militariga iyo dadka muslimiinta Mareykanka ku nool oo dhibahayo sida Soomaalida gabadha yar oo geesiyada nafta u keentay magaceeda Ilhaan Cumar Soomaaliyada ciilku u qabo oo Soomaalidii Minnesota iyo meelahaas joogay oo dhahay waa wada raafahaya marka wax uu ka qaadi kara male insha Allah dacayada dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada da'da yar social media da qabsatay geesinimada Soomaalida marka laba nin oo maaragtay ilaahay kan hadda shartiisana dhaafiyo oo soo noqon 4 sano kale xasan sheekh maxamuud 4 sano kale haduu soo noqdo waxa waaye Soomaaliya wax badan uga matagayaan u maleenaya hatta wuxuu asaga iibsin garin wadamo shisheeyo oo maaragtay oo dalaal u noqon doona marka insha Allah 4 sano ilaahay noogu okeeyo aan ka takhalusno sharta Donald Trump oo adduunka ku hayaan adiga waxaan u maleenayaa 3 sano wax ka yar u hortay asna adduunka intaas oo si dhibahaya marka labadaasna ilaahay naga qabto shartooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.